هاي سيفي عن سيفي عاوز هم سنك تاو أو أفكار أو أفك أو دقها جن أو لبده دقود بتقول تاري أو كان مقعيس شهمير بسم الله waxay noo suurta gashay inaanu waraysi gaar ah aanu la yeelano Cabdikariin Maxamuud oo ah macallin wax ka dhiga dugsi loo furay ardada Soomaalida ama carruurta Soomaalida ah ee degan gobolkan North Holland Cabdikariin marka hore waxaan jeclahay inaan wax ka weydiiyo arrimaha iskoolkan aad ka furteen magaalada Haarlem ee aad ardada wax ku bartaan dugsigan sidiisba goormaad asaasteen oo aad samayseen بسم الله الرحمن الرحيم horta marka hore waan ku faraxsanahay inaan maanta ay waraysataan howlaha maalinta Sabtida iyo Axadda aan magaaladan Haarlem carruurta Soomaalida ugu sameeyay inaad naga waraysataan marka hadaan dib ugu soo laabto su'aashii ahayd dugsigan goortii la aasaasay dugsiga hadda wuxuu furan yahay muddo 5 sano ama 6 sano ku sii socota ujeedada markii hore loo bilaabayna waxay ahayd in carruurta Soomaalida in luqadii Soomaaliga ahayd dhaqankii iyo diintii Islaamka ahayd in jaanis loo siiyo in ay ku yaryar ay baran karaan waa gartay marka waa imisa tirada carruurta Soomaalida ay halkan aad ku haysaan ee aad wax ku bartaan carruurta hadda dugsiga dhigato waa 49 cunug ilaa 12 carruur camalna waxay ku jiraan liiska sugayaasha ku jiraan maadaama aysan noo saamaxaynin meeshaan wax ku dhiganayno iyo macallimiinta aan haysano iyo waqtiga aan haysano in carruurtooda hal mar aan wada kaafino baahidooda waa gartay bal waxaad sheegtaa yaa idinka caawiya ama idinka caawiyay asaaska dugsigan oo runtii muhiim u ah barashada afka Soomaaliga ah carruurta Soomaalida yaa gacanta ku sii markii hore bilowgii Soomaalida magaaladan degan ayaa iska kaashatay in dugsiga uu furmo oo bilaabmo marna haddii meel wax ka bilaabanayaan waalidkoodna hal mar ma wada istaagayaan laakiin dadkii markaas magaalada deganaa oo fahamsanaa muhiimadda ay leedahay in carruurtooda luqadii Soomaaligana ay bartaan diintii dhaqankeena ay bartaan waalidkaas uu istaagay waalidkii kale marka magaalada iyo magaalooyinka yaryar oo tuulooyinka yaryar oo ku wareegsan Haarlem deganaan way ku taageereen marka inta wax ka baxsan oo taageera ma sii jirin waa gartay magaalada Haarlem waxa xarunta gobolka North Holland ma jira wax caawimaad ah oo aad ka hesheen dhinaca dawladda hoose ama qabaytiga bilowgii hore maya 3 sano ugu horeysay waxaan markii horeba isla garanay inay muhiim maadaama ay u tahay wax meesha aan u furayno in carruurteena luqadii Soomaaliga dhaqanka iyo diinteena aan ku barno arrimahaasna ay yihiin wax ay dawladda markaas ama magaaladan aan deganahay wax lacag ay ku bixinayso aysan ahayn in anaga horta markii hore aan xooga saarno in waalidiinta ay jeebkooda lacagta ay ka bixiyaan carruurtii wax loogu sameeyay ha noqoto kiradii meeshii carruurta isugu imaanayeen ha noqoto waxyaabihii kale oo yaryar sidii shaahi iyo haddii xaflada la sameeyo carruurta ay u baahan yihiin 3 sano markaan arrintaas wadnay ayaa waxa soo baxday baahi kale oo ah carruurtii dhaqankeena iyo diinteena iyo afkeena Soomaaliga waan u wadanaa laakiin iskoolaadka in laga caawiyo u baahan yihiin waxyaabo kale in carruurta loo qabto u baahan yihiin 2 sano ugu dambeysay ayaan marka khamayntiga la xiriirnay waxyaabaha sida carruurta in laga caawiyo house break bakhlaadika waxaanay dhahaan homework in carruurta laga caawiyo waxyaabaha yaryar noocaas oo kale ah khamayntigu way naga gacan way naga siiyaan waa gartay waxaad sheegtay in tirada carruurta sugaya halkan inay wax ku bartaan ay aad u badan yihiin macallimiintuna ay yar yihiin waxaa jira lacago aad ka qaadaan carruurta ama waalidiinta bishii bartayga waran saan hore kugu soo sheegaba markii dugsiga la aasaasayay waalidiinta waxaa lagu ballamay cunuga koowaad in 10 euro bishii waalidka ay ka bixiyaan ilmaha labaad ama kan saddexaadna 5 euro ay ka bixiyaan ilaa haddana sidii bay ku socotaa
waana waxyaabaha mar walba suurtagelinaya in meeshii muddo 5 sano ku dhawaada aan haysano maalinta sabtiga oo dhan anaga iskale maalinta axadna ilaa 9 saac inta laga gaarayo anaga iskale anaga inoo xiran tahay كريدة لقوا بحيا وحيابي فاسيلتي أنا قاعد نبغانا لقوا بحيا عرورت هذه مركز دكسير اللي حرايو أما مركز يدها حفلتها وكل واحد سمينا أيو وحصلا أيا لو كاش ذا لعبت سير والدك بحيا وقرت مركز مستقبل مكوت نجرتان ما دام الربع الصوماليين أيو باهين أفك الصومالي قاعد برتان نعيشون أي تعمل أدوير رنتي الصومالي ذا عروته أي استقادي كريم قرشين ما يهي إن ملك له فرطان أو عاد حشان معلمين كلا صوماليين وملها سجيسان. مدة صدق سنة أقدم بيس وحكون مشغول سنين ما دام ماشي هذا سبتي أحد كلية أنا عن استعمال أنت كلنا إذا جو كل دوانا استعمالان إن مقالة بديه عن كهلنا ومال أنا كأن لنا وأفر لا تنسى عنك نوفرا ووحي مركز أنا عن وأرجنا إن يدنا وجرت عن كوسا ما يسمى إلى هذا النوم صورة قلنا ولينا والبو مشغول سنين هذين تيدي خاصة محوها هاي مشروعا في صومالي وعرورتي هذا أركيسين في صومالي عن وجود جيني مهمة جوني ولا هاي ما أنت أحد وحيابها ماشي كسعودينا كوكيين وأنا واحد لو بهاي هذه عرورتي أي هلي لهايين هل مالين كبدا أسبوعي 6 مال 4 مال قلبي مركز سكولك أي كسب بحانه كله أدبي عرورته عن فعل هاي marka kulay mustaqbalka waan ku tala jirnaa in meel kale aan waxaad sheegtay inaad afka Soomaaliga carruurta halkan ku bartaan waxa aad bartaan ma dareenteen carruurtu ay baranayaan oo gacan ay ka helayaan waalidiinta guriyaha marka ay tagaan horta dibka ugu weyn wuxuu ka jiraa carruurtii usbuuci hal maalin bay meeshan imaanayaan 10 yar oo loo soo diyaariyay ayaan meeshan ugu dhignaa maalinta axada laakiin wixii cunugga maanta inta uu ku bartay waa in guriga markii uu tago na la isticmaalo haddii aan la isticmaalin cunugga wixii uu iloobaya marka waa dareemaysaa carruurtu isku mid ma aha laakiin waalidiinta inteeda badan mar walba waan kala hadalnaa guriga inta la joogo ilmaha in af Soomaali waxaan ahayn aan lagula hadlin khaasatan casharadii maanta usbuucan meesha lagu qaatay oo kale in gurigana lagu celceliyo si cunugga markii waxaas ay ugu fududaadaan وحين وقفهم يكرم هدي تان لهيلين مركن المه إن ماشان ما أنت أحد أي مادان أفصمال اللي جبره وحمسوا سايدنيس تامر كوا مهم والدين تنا أنت بدون كلا هذا مركوانا الدريم إن هذا عرورته هذا ماشان تمادو مركان بلابين اللي بيتهم الحنوج يكون بلابين عرورته هذا أنا كلا برب يسيم مرايان وأنا قسم عليه هنو حنوجو هذا وحلا بلابي إن لجوكته يصير هرلاسي وده لكن عرورته هذا مدة سنة كي بركة أو مشروع عن أفصمالي وصعدا جوكته وجوكتي وعلى دريمة يا أف صومالي قدر إنه في عيا وعرفتي كلا إيجاد وينهن وما أنت تكاسو هربحانة أف صومالي كقول شيء سنة يا سيدو كلام إسكولا دين ولا قدر يعني إن اللي عنق اللقطة دي سويا دوك في عيا هاي اللقطة هي كلام إنه صفة عنو برتاء فلانيس. أقرت. وما صنت هاي عبد الكريم محمود. I didn't know